بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وبرنامج كي أدنوغا براتين تسمو برنامج كان وحان إذن كجسو قد بينينا حرونتا رويال تي في مقالة اللستر برنامج كان وحان إذن لسو عسينا يعني أحمد علي وذية برنامج كان وحان نوغو مرتي أمانتا عبد القادر حسن روبلي ولو يقانو شكاف انجينير كوسو برنامج وما سنتهي أحمد انجينير waxaad si kooban nooga warantaa adiga aqoontaada iyo meesha wax ku soo baratay haddii aan kaaga warramo aniga waxbarashadeeda ama meesha wax ku soo bartay marka hore taan waxaan ku soo bartay Soomaaliya waxaan ka soo bilaabay dugsiga hoose dhexe Soomaaliya Liijir Xamar Jadiid ee degmada Howlwadaag dugsiga sare waxaan ugu soo baxay dugsiga sare macallin jaamac ee degmada Xamar Jajab aan hadhiyo degmada Xamar Weyne xiddiga dagaaladii soo ay dhaceen ka bacda ayaa waxaan soo galay waqti yar ka bacda waxaan soo galay dalka Denmark halkaas oo ka bilaabay inaan mar dambe aan dib uga dhigto dugsi sare ka bacdina waxaan qaatay maadada yiraahdo marketing and management BS waxaan u wareegay ka bacda qaybtan engineering ka especially qaybtan architecture engineering ka oo ka dhigtay jaamacadda weyn ee dalka ku taal dalka Denmark caasimadda Copenhagen nina Denmark Technical University taasoo aan ka soo qalin jabshay muddo laga joogo 6 sano ka hor waxaan ilaa 6 sano ugu dambeysay ku soo jiray professionka aan bartay inaan ku soo shaqeeyo taasoo uga soo shaqeeyay meelo kala duwan haddii aan dib ugu laabto professionka ugu dambeeyay injineernimada aniga aan ku shaqeynayo waxa waaye qaybta dhismaha ayaan ku taqasusay aniga guryaha dhismadooda ama ha ahaadaan guriga dhagax ha ahaado sida Soomaalidu u taqaano shub ha ahaado ama alwaax ha ahaado ama bir ha ahaado maantana waxaan rabaa in opportunity aan helay oo Royal TV aan ka helay inaan u gudbiyo ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan waxna ay ka fahmaan horta waxa injineernimadu ay tahay iyo waxa architecture ay tahay kala duwan yihiin iyo shaqada injineerka looga baahan yahay inuu qabto engineer maadaama aad adiga ay tahay arintan takhasuskaada marka engineerku uu wax dhisayo marka koowaad muxuu u baahan yahay inuu ka ogaado dhulkaas oo wax ka dhisay marka ugu horeyso horta markii uu engineerku wax dhisay horta waxa muhiim ah in la hayo masawirkii gurigii la dhisi lahaa ka bacdi engineerku waa inuu ogaadaa horta guriga xagee laga dhisayaa guriga ma waxa laga dhisayaa meel bannaan dhul bannaan ah waxa laga dhisayaa dhul u dhow waxaad ii sheegtaa u dhow xeebaha u dhow ma dhul magaalo gudaha laga dhisayaa intaas marka uu engineerku ogaado ayuu wuxuu dejinaa dhammaan awoodii guriga ama ha ahaato awoodii verticalkeed ama horizonkeed oo kale to dejinaa wuxuu ogaanayaa imise awooda ayaa gurigaasi fundamentalkiisa ku dhici karto taasoo ka bacdi la baara lana ogaanayo fundamentalkaasi marka uu awoodiisa waxay ku dhacaysaa dhulka in dhulkaas horta awood uu leeyahay taasna waxa ay keenaysaa in dhulkaas marka hore loo diro dad geology ah oo ku xil dheer dhulka cabiraadii ama awoodda dhulka soo saaristiisa shaqada engineerkana waxay tahay inuu ogaado haddaba inta meter square dhulkaas ay qaadi karto ka bacdina uu ku baas gareey karo ma 2 dabaq laga dhisi karaa ma 5 dabaq laga dhisi karaa ma 10 dabaq laga dhisi karaa inta guri laga dhisi karaa markaas ka bacdi waxa lagu soo saarayaa si xisaab ahaaneed ah engineer sida aad la socoto hadda wadamo badan ayaa waxa ka dhacay duufaano sida hadda wadamada daawanayno kala Mareykanka oo kale oo guriyihii ay dabayl qaadaan arrintaas ma jirtaa qaab looga hortagi karo oo lagu baajin karo in gurigaas oo dabayshu dumiso ama ay biyuhu qaadaan haddii waxaan ku cadeeyay qofta engineerka ah oo shaqadiisu ay tahay guriga ama guriga ha gaabnaada ama ha dheeraadana waxa uu sameeyaa waxa la status calculation oo macnihiisu uu yahay waxa uu ogaanaya hadba guriga meesha laga dhisay sababta ogaanaya waxa ay tahay gurigaasi mise dabeyl ayaa ku dhici karto ma dabeyl yar baa ku dhici karto magaalo gudaheedii waaye ma dabeyl zaa'ida ku dhici karto oo markano xeebta agteeda waa mise waa guri meel bannaan oo buuro ku yaalo kale oo dabeyshantaas ay ka badan tahay waxa kale oo engineerku baaraya ogaanaya historyga meeshaasi mise dabeyl ayaa ka dhici jirtay duufaanada ka dhici jiray sida hadeertaan oo kale erina duufaanta la hadeertaan oo kale Mareykanka dhacdo kale wuxuu ogaanaya imise ay xawaaro ay ku socotaa dabeyshaas ma waxay ku socotaa 50 mitir waxaad sheegtaa 50 kilomitir bas second ma ku socotaa tusaale hadda u soo qaat in Europe oo kale waxaa jira wax la yiraahdo U-code oo macnihiisu oo yahay Europe oo dhammaanteed waxa ay wada leeyihiin wax la dejiyo waxa loo dejiyo oo kale dhulka hadii magaalo gudaheeda aan banaanka laga dhisaa waxa la sameeyo wax la yiraahdo 30 kilomitir bas second dabaysha ku socoto kaasoo markaas domination lagu sameeyo guriga inuu iska celi karo dabaysha noocaas oo kale ah engineer sida aad la socoto wadamada badan ayaa yiraahdaa waxaan awood u leenahay dhul gariirka inaan dhisno guriyo u adkeysan kara badana Soomaalida guriyo gariirka u adkeysan karaan sameyn karna waxay ku tahay arrin qariib marka maadaama adigu aqoon aad u leedahay ma la dhisi karaa guriyo u adkeysan kara dhul gariirka
waa jirtaa wadamada oo sida adduunka oo u kala hormaray oo technology loo kala hormaray waxaa jirta ayadan in loo kala hormaray baaritaanka wax kasta oo dhulka ku dhaco wax kasta oo dhaco adduunka oo dhulka uu keeno sida ama neefs ha keeno ama dhulgari u xor ha keeno si looga hortago ee guri looga dhiso waa la baar waa la soo ogaaday way jirtaa habab oo looga hortago oo kaleeto waa jirtaa wadamada oo dhulgarirka u badan yahay inay sameeyaan system oo looga hortago hadda annaga waxaanu sameynaa awoodda guriga oo dhan oo la dejiyay ayaa boqolkiiba adiga 15 waxaa loo qaadanaa inay tahay dhulgariir oo dhacay oo kaleeta kaasoo oo markin u dhigmay ilaa iyo 7.9 oo kaleeta oo Richard Scaliska kala dhahayo inuu iska celi karo gurigaas oo kaleeta minis macnaheedu waxa way haddii dhulkaasi gariirayo oo gariiro guriga wuxuu sameynaa asaguna fabrication waa la move ayuu la sameynaya guriga markaas ma ku imaanaya waxa la yiraahdaa cracks ma ku imaanaya kaasoo keeni kara guriga intuu collapse ku dhicin waxa bilaab marka hore crack ku imaado crackgaas marka horta aanu ku imaado taas waxa keenaysa marka inuu guriga sidiisa u ahaado waxaan u badan wadamada oo badana ay ka dhacdo dhul gariirka oo kaleeta ah engineer waxa jira in uu ku yimaado guriyaha dilaac gurigii oo la dhisay laga yaabo inuu brand new yahay ama 5 sano ama 6 sano sidee looga hortagi karaa inaan gurigu dilaac ku imaan horta gurigu waa kala duwan yihiin maanta adduunka laga dhiso haddii aan dib u fiirno Soomaaliya iyo meesha annaga aan ka nimaano Afrika ba ahaatee guryaha waxaa laga dhiso waa traditional building guryaha la dhaha guryo dhaqameedka ah asigoo gurigii oo dhowr dabaq ayaa wuxuu yahay steel guri dhaqameed oo waxa uu yahay weli waxaa la isticmaalayaa shubkii oo maaragtay oo inta la soo qaado lagu shubaayay ama waxaa la isticmaalayaa waxa ay sheegtaa adiga qalab waa hore laga soo tagay kale oo aan awood u lahayn markin inuu gurigii oo ka saaro aariyada oo kaleeta ah inuu guriga ka saaro taasoo keeni karta mustaqbalka dhow inuu gurigaas oo dilaaco guriga markuu dilaacaan waxa ay keeni kartaa inuu gurigaas oo collapse ku imaado meelaha qaarkood tusaale haddaan usoo qaado guryaha waxay u kala baxaa laba nooc oo guryaha loo dhisaa nooca koobaad waxaa la dhahaa nooc weligii soo jiri oo ay tahay waxyaalaha la columnska iyo beamska oo la isku dhajiyo oo afargeesta loo sameeyo la isku dhajiyo noocna waxa waa nooc hadda cusub oo imaaday oo la dhahayo guryaha la broadcast la dhahayo oo ku saabsan guryo oo darbiye la isku dhajiyo ah minis macnaheedu waxay tahay gurigii oo dhisan oo shirkadu soo sameysay oo la soo dhisay ayaa la soo qaadaa waxaa la keenayaa meeshii limaanayo waa la isku dhajinaa meeshaas waxa keliya oo laga qabanaa waxay tahay waa in fundamentalkii aasaaskii la sameeyo aasaaskii loo habayo bas intii ka dambayso waxa baabuura keenayo shaqaalu waa isku dhajinaya minis waxay keenaysaa gurigaas la isku dhajinaa marka Soomaalidu ay maqlaan waxa laga yaabaa guri la isku dhajinaa oo shuba oo dabaqyo dheer ah lagu noolaana markii la dhaho qof walba Soomaali waxa laga yaabaa inuu yiraahdo see macquul ku tahay waxa la isku dhajiyo waa dhacay laakiin gurigaas la isku dhajinaa wax oo boqolkiiba 80 ka cimri badan guriga isla meesha lagu sameeyay waxa keenaa waxay tahay gurigaas la isku dhajinaa markii la keenay waxa la keenaa asaga oo darbigii oo u muuqdo sidii muraayad oo kaleeto wax aari aan ku jirin sababtaan waxay tahay Yurub korka daay aan ku sheeg waxa macnihiisu yahay wax uu ku qoraa sharciyada guryaha Yurub laga dhisaa waana guriga sharcigaas oo buuxshaa tusaale guriga la iskama dhisi karo waxa loo dirayaa state calculation uu sameeyo engineerka iyo architecture tiling uu sameeyo masuurada uu sameeyo ayaa waxa loo dirayaa consul waxa fadhiyo engineer aniga kale taa wixii yaqaano markuu wuxuu sameeyaa wixii la sameeyay inay saacad baraya markuu baaro oo ogaado inay sharciyadii Yurub korka oo cusub taasiiska inuu yaani ku basgaraysa markaas ka bacdi wax ogolaana gurigaas la dhiso iska bilaabo marka engineerku waxaad sheegtay in guriga ay dilaacaas keenaysa aariya inay gasho marka aariyadaas sida looga hortagi karaa marka inay saba imaanba marka hore looga taxadiri karaa waxay ma kartaa gurigaas markii oo Bersimbi oo kale traditional building markii la dhisaayo oo kale waxa la keenaa wax la fabrication baa la yiraahdo oo machine ah oo marka aariyada markii lagu shubo shubkii iyo shimintada iyo birti markii la isku shubo oo waxaan scaling-ka alwaaxda geesaha u jilaato waxa loo diraa kaas markii loo diro waxa ku sameeyo fabrication marka fabrication wuxuu sameeyaa wixii aariyo ka soo saaraya laakiin maanta waxa nasiib ah maanta inaanu yeelano waxa ay sheegtaa warshado ayagoo dhisanba ku keena adu baahneenba ina waxaad ii sheegtaa maanta meesha aad shaqaale intuu yeerto meesha ku shaqaale waxa warshada u shaqeynaya meesha ku soo dhisay sida fornooyinka oo kale taa loo soo dhisay darbiyada daaqadii albaabadii u banaan daaqadii albaabada banaan la soo qaadaya bawra soo qaada lagu keeno waa lagu dhisaa aariyada ku jirto waa 0.2% ku jirto minis wax yar oo macna aan lahayn aari aan laga celi kar markaas ayaa la ogolyaa maximal ku badan aarina ku jiri karto engineer marka gurigii la dhiso aan lagu qanacin macnaha foomka guriga u dhisan yahay soo gurigii taagan foomkiisa ma la bedeli karaa wax ma laga bedeli karaa guri wax foomkiisa waxa laga bedeli karaa laba shayba guriga waa lagu sameyn karaa waxaan leeyahay improvement the image of the construction waa la sameyn karaa oo waxa tusaalaan kamid ah gurigii oo ku dhisnaa
oo marka hore ku dhisnaa caadi ah waxaad rabtaa inaad guri kale ku darto ama guri gudihiis aad bedesho waa bedeli kartaa wax u bedeli kartaa guriga aan maanta arkeen hadda guriga aan ku jirno kaleete waxaa jira meelo awoodda leh awoodda qaado iyo meelo stable oo guri stable ah brisbane ba kale guriga markuu afar geer isu dhisan yahay waxaa laga yaabaa this time in waqtiga aarid ay ka timaado koonfurta next time aarid ay ka timaado koonfur bari oo kaleete meelahaas camal ay ka timaado aarid soo marka waxa injineerku uu baaraya marka aarid dhanka ay ka timaado guriga inuu stable ahaado oo taagnaado oo dhanka u dhicinin sadarta waxa injineerku wuxuu dooranayaa derbiye kamid derbiyaasha guriga oo calaamadeyna inay yihiin guryaha derbiga stable gareeyo marka dabeesha ka timaado dhanka dhinaca kale marka ka timaadana wuxuu dalbanayaa derbiye kale uu leeyahay waxay noqonaysaa stable derbiyadaas oo laga ilaalinayo inay dhaqaaqaan ama dhacaan oo kaleete oo injineerku cadeynayo waana waxa leeyahay state calculation oo loo geynayo councilka inuu soo ogolaado loo baahay marka hore inuu cadeeyo ayaa looga baahan yahay marka haddii gurigu ay dhacdo inuu gubto ama in la dumiyaa guriga oo dhan mase waxbaa laga qaban karaa guriga weli wax qayba ka taagan yihiin haddii aan ka hadalno modern building guryaha sanadkan cusub ee hadda adduunyada laga dhisayo hadda adduunka aynu joogno hadda laga dhisayo guryaha derbiyadooda Brisbane oo kaleeto meesha jaraanjarta ay marto oo kaleeto ama meesha elevatorka ay maraan oo muhiimka u ah waxaad isha dadka saaran dabaqyada dheer ee ka soo degaayo oo kaleeto waxaa la sameeyaa ilaa iyo 2 saacadood derbigaas wax ka labsi ku dhici karin dab kasta oo qabsado derbiyada kaleeto caadiga ah ee aan markano ahayn derbiyada awoodda qaado aan ahayn oo kaleeto ayagana waxa laga dhigaa ilaa iyo 60 daqiiqo oo kaleeto min hal saac inuu derbigaas celi karo oo markano waxa bayraatay ka labsi aan ku dhici karin gurigaas waa jirta inay oo laga dagaalamo waan waxyaalaha loo baahan yahay inay waxaad ii sheegtaa calculation lagu sameeyo imise ayuu derbigan iska celin karaa dab ah idminis macnihiisu marka dadka hadda la dhawo derbi guriga dab lagu qabanaa oo waa la fiirinaa marka la midis macn dadku si kale inuu ka laga yaaba derbiga adiga aad sameynaysid waxa waaye institute gooni oo waxa jira baara dabka institute kaas wuxuu sameynaa marka derbigii camala Brisbane derbiga oo dhumucdiisu ay gaarayso 120 millimeter oo kale ay gaarayso ayaa waxa la geeyay ama biriis wixiisa ku jiraan ayaa waxa la saaray awood loogu talagalay derbigaas waxaan lagu qabanaa marka dab gaarayo ilaa iyo intaasoo degree gaarayo dabkaas gubkii kumitaankiisa ay gaarayaan waxaa la sameynaa marka imise ayuu gurigan u gudbaa dhinaca kaleeta hal dhinaca laga siinaa haddana waxaa la bilaabaa mid laga siinaa labada dhinacood waxaa la fiirinayaa imise ay isku soo gudbayaan oo kaleeta ama hadduu yahay beamiskan oo waxyaalaha beamiska oo columniska markaasaan u baxaa waxaa jira waxyaala beamis oo labada dhinac looga qabto ay soomaaliduna had deertaan magac gooni uma laha kaasna waxaa la fiirinaa 4 gees maadaama 4 gees uu ka furan yahay waxaa la fiirinaa 4 gees inuu dabka ka qabsanayo oo iska celi karo muddo 1 saac iyo 20 daqiiqo ah waxaan dhihi rabay 120 daqiiqo ah ayaa la fiirinaa minis ma 2 saacadood inuu gurigaas wax ka labsi ku dhici karin 2 saacadood loogu talagal ah dadka dabdamiska ah oo shaqada kule inay ka soo gaari karaan dabkaas ay dumi karaan marka taa macnaheedu waxa weeye haddii guriga qaabka loo dhiso uma baahna markuu gubto ka bacdi in guriga la dumiyo asagoo taagan ayaa maaragtay maadaama hore looga taxadirin ayaa dib u habeen lagu samayn karaa sax waay taas oo waxaad ku sheegaa marka hore waxa laga taxadiraa haddii uu gubto guriga wuxuu guriga ma wada gubanayo ama wuxuu ka gubanayo meel uu ka gubanayo ama waxa in badan uu gubanayo guriga kamid ah intaas waxaa la sameynaa marka mise effect ay ku sameeyso dabkii dhacay markii la argaado waxa la ogaanaa hadda derbiga qaybtii hartay mise awood ay markino ay leedahay oo ay qaadi kartaa haddii marka la arko in derbigaas awoodiis ay yartahay waxa loo taagaa wax annaga hadda aanu dhaana saldaad ama geedo derbiga lagu qabto markaas derbigii oo kaligiisa la saaraya markaas waxa la keenaa derbi kale oo derbiga u dhimaadana waa la gelinaya asoo guriga sidiisii waa gartay sida aan la socono hadda Soomaaliya oo kale markii wax laga dhisay waxay jirtay ahayd carrada iyo gedi shamitadan ay kan badan la qaato la isku qaso bal waxaad wax nooga taabataa marka modern building aad ka hadlaysid qaabka shamiitada loo isticmaalo haddii taas aan dib ugu laabto bal waqtiga ani Soomaaliya aan joogi jiro waxaan xasuustaa in aniga oo guri loo dhisay aniga familkayga waxaan xasuustaa guriga inta la imaaday in dhagax inta la soo qaado shamiinta laga buuxiyo dirita loo waday laakiin maanta modern iyo maanta adduunka aan ku noolnahay adduunkii hore ma ahan maanta shamiitada waxay u kala baxdaa dhowr nooc oo shamiita ah shamiito waxa loogu talagalay inside guriga lagu sameeyo shamiito waxa lagu sameeyaa in banaanka lagu sameeyo shamiito waxa loogu talagalay in lagu sameeyo oo fundamentalka la dhigayo guryaha dhulka environmentigooda oo aad u xun yahay tusaale dhulka meesha warshad ahaan jirto oo kaleeto oo kiimikada ku daadatay shamiito gooniya jirto oo fundamentalkeeda laga dhisayo oo iska celin karto waxyaalahaas aggressive-ka oo kaleeto ah
iska celin karto laakiin waddankeeni marka hadda dib u fiirino waxa waaye shamiintadu waxay ahayd from dhulka hoose ilaa iyo kor waxaa la sameynaya one shamiinta aan lagu wadaa meesha shamiintaas ma jirto shamiintada waxaa lagu kala cadeynayaa xaggee guriga looga dhisayaa idminis waxaa macnaheedu waxay taagan tahay waxa ay yeelanaysaa leeg shamiinta derbiga wuxuu yeelanayaa leeg yar oo birta ilaa ay u dhexeynaya banaanka leega siriiska waxaa la waa inuu aada 2 sentimitir 4 sentimitir 5 sentimitir hadba waxay ku xiran tahay meesha guriga uu ka yahay iyo shamiintada nooca isticmaalaysid iyadoo la fiirinayo environment ma normal ba waxaad sheegtaa ma cuf baa ku jira hawada ma cufa meesha ka jiro oo waxa ka imaan ka dhidi iyo ka imaan karo ma waxaad sheegtaa aggressive miya marka dhulka hoostiisa ma aggressive miya ma extra aggressive waxaad sheegtaa shamiintada inuu cuno marka shamiintada loogu talagalay gudaha haddaad ku dhisto fundamental course ku dhisto waxa keenayso inay shamiintada awood ay yeelaneen marka shamiintada awood ay lahayn oo fundamental kiin oo marka oo bilaabo inay ciidii shamiintada ay cunto oo kaleete waxa bilaamaysa inuu crack imaado hadduu crack imaadana waxa imaanaya sinkles oo guriga dhinac u degaya marka intaasoo nooc oo shamiitaa oo jirta hadda aad ka hadashay ma wax injineeradu wada yaqaaniin ama se injineerada hadda wadamada reer Yurub kale wax ku soo bartay sida adigoo kale hadda shaqooyinkan aad ka shaqayso kale ayaa fahamsan mase baa kuma xataa wadanka gadaal injineerada jooga iminka in shamiitooyinka sidaas u qaybsan yihiin way ogyihiin horta waxaa jirta waxyaalo fara badan oo engineerinta horta waxaad sheegtaa wadamada Afrika iyo halkaan isku diidiyihiin oo kaleete marka communication aan sameeyna aan wada hadlayna si oo markin oo aan caadi ahayn sababtoo waxa waaye tusaalaha waxa kamid ah shamiintada oo kaleete hadda aad ka dhawaajiso kale shamiintada anaga category nooleeda qayb noo kala leedahay laakiin ay waxa u maleysaa in shamiintada la isticmaalayo ay tahay hal xabo maybe opportunity kale uma haystaan inay markin oo shamiintooyin kala duwan ay helaan taas waa suurtagal second waxaa suurtaxa kaleeto oo la isku diidiyaa waxay tahay engineerinta oo la weydiiyo waxay tahay guriga la iskama dhisi karo ilaa la ogaado dhulka aad ka dhisaysid cabirkiisa intuu awood uu leeyahay inta kilonewton per meter square kiiba inta uu qaadi karo ilaa aad ogaado guri iskama dhisi haddaa guri iska dhisto minus waxaa tahay khayr mas-uul sababtu waxay tahay ciiddii guryaha waxay kala tahay ciid dhoobey ah ciid caddaan oo furfuran oo waxaad sheegtaa ciiddani liido oo kaleeto ah waxa imaanaysa markii guriga fundamentalka aad dhisto awoodda loogu talagal 4 dabaqaa saarto inuu guriga maalinka daba dhinac u boosmo oo waxa keeni karta dhinacaas inuu xogaa ciidiis ay culuseed dhinacan kale tan ciidiisi aad waxaad sheegtaa ciid oo khafiif ah mar guriga wuxuu u buuranaa oo u dhacay dhinaca khafiifka wuxuuna keenayaa inuu guriga ku imaado dilaac oo markii inuu dilaacan toos ahayn oo dilaac dadban ah ku imaanaya kaasoo keeni kara marka dambe qaybaha muhiimka ee guriga ee awoodda guriga ka qaado inuu karaa ku imaado mar haddoo qaybtaas oo dilaac ku imaadana waxaa keenaysa guriga inuu collapse oo imaado sitaas aan u dhicin markii hore waxaa loo baahan yahay in laboratory lagu baaro oo waxaad isla ogaado ciiddaasi inta awooddeeda la egtahay tusaalaha hadda aan soo qaadnay ciidda xamar oo kaleete aniga opportunity uma heli ciidda xamar inaan baaro oo kaleeto oo waxaad sheegtaa oo aan ogaado laakiin rag engineeriin aniga aan la hadlay waxa sheegeen inta ciid ay qaado laakiin annagana lambar inaan ogaano inta ciid ay qaado waxaana la barana waxay tahay inaan soo saarno inta ciid ay qaado kaliya waxaan u baahanay inaan ogaano information ciidda noocee tahay iyo wax la yiraahdo frequency finkelska ciid ay leedahay because ciid frequency finkel ay leedahay ciid walba adduunka inta leedahay marka ogaano waxaan soo saari karnaa haddaba ciiddaas inta meter square ka inta ay qaadi karto marka waxaad wax nooga taabataa iyaga farqa u dhaxeeya traditional buildingkii hore qaabkii hore wax loo dhisi jiray berigii hore oo inta fundiga loo yeero gurigii 3 dabaq 4 dabaq la dul saaray iyo hadda modern building hadda aad ka hadlaysid oo qaabka wax loo dhiso farqa u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya waxaa ka mid Axmedow tusaale ahaan guryihii horeete waxa ahaan jirtay limit dhaqaale oo go'an ma aysan lahayn oo inta ku baxayso gurigaas exactly qofta markuu ogaado ka bacda waxba ku darsoomi jiray ama waxba la isku soo raaci jiray waxaa ka mid ahay guriga awoodiisii oo dheelitirneed tusaale ahaan guriga markii aad waxaan ka hadlaynaa maanta waa guryaha shubka guriga markii aad shubto oo kale waxa jirta ilaa maalmo aan loogu talagelin guri kale aan la sii saari karin taasoo lagu cadeeyo qalab oo markino aalad cusub oo hadda adduunka jirto inuu diyaar u ahay in la sii saari karo guri kale ama dabaq kale waqtigan xaadirka taasuna xagga ma jirto waxa waaye qorraxda lagu xisaabtamaaya inta oo ka qalalay waxa laga yaabaa marka gurigaasi oo si fiican u qalalin inuu guriga darbi kale la saaro taasoo keenaysa crack adaanka hadlan inuu imaado maadaama wuxuu sameeyay wax la definition oo sameeyay guriga wuxuu noqonayaa darbigiisa u dhisnaay oo fadhi oo jiifka ahay wuxuu noqonayaa saan oo kale si oo buusan u noqonayaa taasoo keenaysa mar haddii buus imaado inuu crack imaado geesaha meesha iska qabanayaan oo kale kan wadeerka haddii aan ka hadalno waxa farqiga doonta horta waa on time dhisideeda second is
waa ka cimri badan yahay guriga oo traditionalka taytis economidiis waa ka yartaa oo dhaqaale ahaan waa ka economy yartaa waana on time waa ka tahay waqtigii loogu talagalay cimriga inta uu noolaadana waxa uu noolaana cimriga inta ka badan tusaale haddaan soo qaato hadda waxaan ka dhisnay in Copenhagen waxaan ka dhisnay hotel weyn oo markan oo dhaho Bell Hotel oo ku yaala caasimadda Copenhagen meel airport agtiisa oo la caamay Bell Center hotelka waxaa la Bell Hotel oo 24 dabaq waxaan ku dhisnay modern construction kan cusub waay 24 dabaq oo dabaq ugu hooseeyo oo 15 degree oo qalooco haddaba kaliya imagine marka dabaq 24 inta qalooci karo marka dabaqa ugu sareeyo qolka ugu sareeyo aad ku jirto waxa waa outside waxa ta building marka u fiirso dhulka aad fiirso waxaan ku dhisnay qalabka hadarta cusub modernka waxaan loogu talagal inuu sahay above 150 years inuu qadin sahan karo gurigaas engineer adigoo maasan su'aasha ugu dambaysa cilmigan hadda modernka aad ka hadlaysid hadda washaqaysa wadamada reer Yurub ma laga yaabaa inaad dib u laabato oo wadanka insha Allah u faa'iideyso injineerada halka jooga ama aad wadanka gudihiisa uga shaqayso in fact aad iyo aad aan jeclaan lahaa inaan wadankeena hooyo aan ku laabto oo aan markano aniga waxaan awood u leeyahay shakhsiyan ama ragga engineering oo Soomaaliya aniga oo kale taa awood u leenahay inaan u fidino aalada cusub markano hadda adduunka technology adduunka jirto laakiin waxa noo masaabixeen jawiga ama markano xaaladda maanta Soomaaliya ka jirto laakiin marka xaaladdu ay fiicnaato insha Allah ta'ala hadii Ilaahay raado waxaan rajeynayaa dib ugu laabano dhamaanteen baan markano aan ka wada shaqeynaa insha Allah horumarka wadanka engineer Roble aad iyo aad umahadsantahay engineer daawadayaal waxaa la soo gaaray xilliga aan soo gabagabayn lahayn barnaamijkana waxaa noogu martay maanta engineer Cabdulqaadir Xasan Roble oo loo yaqaan Shukaaf waxaana barnaamijka idin la socodsiinaya anigoo Axmed Cali Hudeeya daawadayaal barnaamijkan waxaa noogu xigi doona barnaamijkii tahriibka barnaamijkaasna waxaan uga hadli doonaa dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibku iyo waxyaabaha dadka ka qabsada ha noqoto kufsi ama dil ama dhac ama dhimasho ku timaada dadka مسابقة وين مسابقة مركب وديبي وبحر ربح ديك السوق هذا ماشي أقول دمك يكون بابين وهالكاس جبر يويل أودي عرّة عرض ماشي لقوا بابين هالكاس واي وحقول درد باور بنا صوت نلا صوت بدي أسكره مالين ده ما نلحق بدينا مالين دان جاري عشان ندبر تاني نينك جاري كان هو السوداني جاه وحو دافن عفنا ماله هير وحو جاري قبله الصومالي أو يزجر استعماله هذول كانوا أنا كانوا وحبك مقام كنا سحر على مريا وحبك مقام كنا أيوة برنامج كاسنا أيان إن شاء الله تعالى نوجه حقد وأنا متك أن حتى هالكام قصو حرن إن شاء الله أنت أن كانوا كلا أودي بكل مدوننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته